Bilowga filimka waxaan aragnaa atooraha lagu magacaabo Ferro Alavetti kaasoo ah bilyaneer balse ku buusan nolol taajirnimada. Wuxuu ku soo koray dalka Talyaaniga wuxuuna la soo koray aabihiisa. Markuu weynaaday wuxuu tagay dalka Mareykanka wuxuuna noqday nin nolosha ku guuleystay. Aabihiisa ka walwalsan inuu weligiis heli waayo jacayl daacad ah maadaama uu waqti la qaato dumar badan oo ku doortay lacagtiisa. Maalin asigoo asxaabtiisa la fadhiya waxaa soo wacday hooyadiis waxayna u sheegtay inuu aabihiis aad u xanuunsan yahay. Isla markiiba wuxuu qaatay diyaarad oo wuxuu tegay dalka Talyaaniga si uu markii u dambeysay u arko aabihiisa. Markuu arkay aabihiis aad ayuu ugu farxay. Aabihiis ayaa markii ugu dambeysay wuxuu Ferro ka codsaday inuu isaga tago hantidiisa iyo maalkiisa uuna muddo bil ah ku noolaado meel aan ahayn meeshuu hadda degan yahay uuna ku noolaado bilaa lacag. Olivetti ayaa arrintii ka lalabeeyay balse ugu dambeyn aabihiis wuu ka yeelay. Maalmo kadib Ferro aabihiis ayaa dhintay. Wuxuu laabta geliyay hooyadiisa uuna isaga soo tagay. Ferro ayaa markuu shaqada imaaday wuxuu caawiyihiis u sheegay inuu muddo bil ah maqnaan doono. Sidoo kale wuxuu u sheegay darawalkiisa waxayna kala badasheen cadeymaha ID card-ka. Waxaan aragnaa oday saaran diyaarad oo si anshax daran ula dhaqmaya gabadha ka shaqeysa diyaaradda. Wuxuu ka caawinaya cuntada. Ferro ayaa imaaday magaalada wuxuuna lifti weydiistay tarag weyn. Waxaa yimid odaygii dhaqanka xumaa. Wuxuu soo raacay taksiga waxaa wada gabar aad u dabeecad fiican. Ferro ayaa shaqo weydiistay ninka iska leh dukaanka balse ninkii ayaa u diiday shaqada oo uu soo ceyriyay. Wuxuu imaaday baar wuuna ka cunteeyay maadaama uu yahay nin qurxan. Ferro waxaa wareysatay gabar oo waxay weydiisay wuxuu qabto balse wuxuu u sheegay inuusan wax lacag ah haysanin wayna ka tagtay. Waxaa u timid gabar kale oo waxay ku tiri ma haysataa meel aad seexato. Wuxuu yiri maya waxay u soo waday gurigeeda. Markuu guriga yimid wuxuu arkay Diana oo fadhiga jiifta gabadhii aan ku soo aragnay gaariga. Gabadhii kale ayaa waxay isku dayday inay soo xirgeliso Ferro balse wuu ka diiday oo wuu sasabay. Wuu seexday sabab wuxuu ka jiifi waayay quurada gabadhii kale. Banaanka ayuu u soo baxay wuxuuna arkay Diana. Wuu u soo dhawaaday si uu u daawado balse markay aragtay way qeylisay oo gabadhii kale ayay u wacday. Ugu dambeynna banaanka ayaa loo saaray Ferro. Gabadhii kale ayaa waxay raali gelisay Diana oo way sasabtay ayadana. Markuu soo baxay waxaa banaanka ku qabsaday laba tuug oo waxay weydiiyeen lacag. Wuu la dagaalamay wuuna ka soo fakaday. Guri ayuu ku dhuntay balse gurigii dadkii ku noolaa ayaa booliska wacay. Ciidankii ayaa xiray Ferro oo waxay geliyeen xabsi. Xabsiga dhexdiisa wuxuu ku arkay tuug weyn. Way isaflagaadeen oo way isdagaaleen. Booliiskii ayaa arkay oo kala dhex galay waxayna wadeen ninkii tuuga ahaa. Ferro ayaa dhibsaday arrinta haysata balse wuxuu soo xasuustay dardaarankii aabihiisa wuuna isaga dulqaatay. Subaxii markuu soo kacay xabsiga ayaa laga soo daayay kadib markii lagu waayay wax dembi ah. Ferro aad ayuu u baahnaa wuxuu imaaday maqaayad wuxuu weydiistay cunto bilaa lacag ah balse waa la soo ceyriyay. Waxaan aragnaa Diana oo nin soo daba socdo way cabsatay way soo carartay. Guriga ayay aad u garaacday waxaana ka furay hooyadeeda. Waxay ku sheekaysay wixii la soo kulantay. Way isfahmi waayeen hooyadeeda. Habeenkii Ferro wuxuu seexday kursi ku yaala xadiiqada. Waxaa u timid gabar waalan wuuna ka soo tagay. Subaxii markuu soo kacay Ferro wuxuu soo aaday meel rooti lagu gado. Wuxuu u dhiibay 50 shilin balse ninkii ayaa ku qoslay oo wuxuu siiyay rooti free ah. Ferro oo jaraa'idka akhrisanaya wuxuu soo gooyay laamiga waxaana jugsiiyay gaari. Wuu dhaawacmay. Darawalkii ayaa Ferro raaligeliyay wuxuuna u soo waday gurigii ninkii diyaaradda saarnaa. Wuxuuna arkay ninkii iyo naagtiisa oo isdagaalaya. Markuu fadhiistay waxaa loo sheegay in shaqo la siin doono uuna ku shaqayn doono $600 oo wuxuu ahaan doonaa darawal. Isla markii duqi naagtiisa ayaa ka heshay Ferro oo aad ay u fiirisay. Waxay imaatay gabar uu dhalay odayga waxay weydiisatay $500 wuuna siiyay. Ferro oo rabo inuu baxo ayaa waxaa celiyay ninkii naagtiisa. Waxayna ka codsatay inuu waiter ka noqdo xafladda cawada. Dadkii xafladda ayaa si dhaqan xumo ah ula dhaqmay Ferro. Ferro waxaa lagu amray inuu guriga geeyo nin cabsan. Ferro ayaa wacay caawiyihiisii wuxuuna ku amray inuu shaqaalihiisa uu siiyo $5,000 midkiiba. Markuu imaaday guriga waxaa qolka soo gashay ninkii naagtiisa. Waxay gashay sariirta hoosteeda. Isla markii waxaa soo galay gabadheeda oo waxay isku dayday inay xoogto Ferro balse wuu ka diiday wuu ceyriyay. Waxaa yimid odaygii oo isagana doonaya dhaqan xumo balse Ferro ayaa ku yiri waxaan qabaa cudur. Xitaa eygii ayaa damcay. Ferro wuu yaabay markaan. Wuxuu imaaday xafiiska wuxuuna ku arkay Diana
oo ah gabadhii habeenkii uu la kulmay. Wuxuu Fiyoore ugu geeyey miiskeeda. Gabadhii waxaa soo wacay booskeeda oo wuxuu ku yiri guriga iigu imaw. Feero ayaa lagu amray inuu tacsida geeyo Diana. Intay gaari saarnaayeen, Feero aad ayuu u fiirinayay Diana balse way caysay. Ugu dambeyn waxay imaadeen tacsidii. Waxay isla soo caaween kafee. Sheekada marka hore maysan fiicneen. Waxay u sheegtay in ninkeedii uu dhintay 8 sano ka hor. Waxay sii sheekaysteen muddo 2 saacadood ah. Way isfahmeen oo aad ayay u sheekaysteen. Markay gaari soo raaceen, Diana ayaa waxay u sheegtay Feero inay neceb tahay shaqadan oo aad ay u nacday booskeeda. Waxay rabtay inay lacag deemiso Feero balse wuu ka diiday. Markay guriga imaadeen, way ishumiyeen. Feero ayaa wuxuu u sheegay Diana inuu casho u wadi doono. Arrintan waxaa arkayay gabadha familkeeda. Way ku qayliyeen maadaama Feero uu yahay kaliya darawal. Maalintii xigtay waxay isla soo aadeen magaalka oo way ka shaqeynayeen. Waxaa xafiiska imaatay gabadhii uu dhalay duqa wayna ka been abuuratay Feero. Feero xafiiska ayaa looga wacay waana la ceyriyay. Arrintan waxaa arkayay Diana wayna u dulqaadan weysay dhaqan xumada booskeeda wayna ka tagtay iyadana shaqada. Way soo raaceen oo magaalka ay isla soo mareen. Diana ayaa casho ku casuumtay Feero. Wuxuu u sheekeeyay familkeeda wuxuuna u sheekeeyay wuxuu qabto balse kuma farxin ayaga midaas oo waxay si qaas ula hadleen gabadhooda maadaama uu yahay nin aan lacag haysan. Feero ayaa u sheegay inuu aadi doono magaalada California. Familkii ayaa arrintan ku farxay. Waxaan aragnaa ayagoo jalaato isla cunaayo. Diana ayaa wacday saaxiibteeda si ay ugu sheekayso jaceylka cusub ay yeelatay. Feero ayaa alaabtiis ka soo qaatay gurigii duqa. Diana ayaa waxay Feero u soo bandhigtay inay isla furtaan ganacsi cusub oo ay hayso lacag ay keedisay. Waxay aad ugu sheekaysteen fikradda cusub. Feero ayaa fikrad fiican siiyay Diana. Habeenkii waxay isla soo aadeen casho. Way sheekaysteen wayna isla dheeleen. Markay soo baxeen, Feero ayaa Diana ku yiri waligay ma arag qof adigoo kale ah. Waqti ayayna wada qaateen. Diana ayaa cabsatay. Wuxuu weydiiyay sababta. Waxay ugu sheekaysay dhacdooyin xunxun oo soo maray iyada. Way ooysay laabta ayuuna geliyay. 2 isbuuc kadib, ganacsigoodii aad ayuu u koray oo dhowr qof baa u shaqaysa. Feero ayaa wuxuu Diana u sheegay inuu bixi rabo mar dhow. Diana ayaa isku dayday inay celiso balse way awoodi weysay. Waxaa u soo dhacay moobeel waana caawiyihiisa. Waxaa loo sheegay in laga rabo maxkamadda maadaama shirkadda dambiyo badan lagu haysto ayna muhiim tahay inuu imaado. Ayagoo jooga xadiiqada, Diana ayaa Feero u sheegatay jaceylkeeda. Waxaa la gaaray maalinkii maxkamadda. Ugu dambeyn waxaa la siiyay inuu Feero uu ku imaado 2 beri. Caawiyiis ayaa soo wacay wuxuuna u sheegay in laga rabo maxkamadda maalinta Isniinta ah. Waxaa la gaaray maalinkii Isniinta balse weli Feero muusan imaan. Kiiska ayaa la soo xiri rabay balse Feero ayaa imaaday. Wuxuu tusay cadeymihii oo way ku guuleysteen kiiskii. Wuxuu u soo noqday Diana waxay ku tiri halkeed ku maqneed balse muusan u jawaabin. Naag Laymad ayaa shumisay Feero. Diana ayaa soo orday wuuna ka soo dabarday. Wuxuu aad u soo wacay Diana balse muusan heli karin maadaama moobilkeedii uu ugu dhex dhacay biyaha. Wuxuu soo wacay hooyadeed. Diana ayaa ku soo noqotay xafiiskii balse Feero weli muusan imaan. Wuuna isaga tagay shirkaddii. Waxaan aragnaa darawalkii dhaawacay Feero wuxuu imaaday gurigii odayga wuxuuna tusay $50,000 oo uu siiyay Feero. Wuxuuna u sheegay inuu Feero uu yahay bilyaneer. Feero ayaa hooyadiis uga sheekeeyay Diana. Feero ayaa imaaday gurigii Diana uu raaligeliyay oo waqti weyn ayay wada qaateen. Feero ayaa ka codsaday in Diana ay imaato magaalada California. Way ka ogolaatay. Wuxuu kaloo ka codsaday inay shaqada isaga soo tagto oo wayna ka yeeshay. Waxay isla soo raaceen diyaaraddii. Diana weli ma oga in Feero uu yahay bilyaneer. Waxaa soo dhaweeyay darawalkiisii. Diana ayaa yaabtay. Ugu dambeyn Feero u sheegay balse way aamini la'dahay. Waxay imaadeen qasri weyn. Diana ayaa ku farxday arrintan. Wuxuu ka codsaday inay sii joogto California. Wuxuuna u sheegay inuu jecel yahay una siin doono qayb ka mid ah shirkadiisa. Ugu dambeyn way isguursadeen oo jaceylka ayaa badiyay. aad ayaad ugu mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Haddii aad ka heshay muuqaalkan fadlan like saar. Wixii fikrad ahna noogu reeb qaybta commentiska. mahadsanid.